طبعا halkan naga daawasan Soomaali Media magacaygu Cabdimaalik Askar barnaamijka caawanada xiriirinaya Sakriya gadaal buu ka riixaya sida aad ogtiin gobolka Minnesota mararka qaarkood waxa aanu booqanaa different businesses oo kala duwan haday noqon lahayd inaan baamushtari booqano ama haday noqon lahayd xafiisyada gobolka ka dhisan inaan booqano maanta xarunta waxaanu booqanay African Development Center oo ku taala bartamaha koonfurta magaalada Minneapolis xaruntaasi sida aad ogtiin waxay soo jirtay ilaa iyo muddo ay ku dhowdahay 5 sanadood waxaana ay dadka u qabata waxyaalo kala duwan hadaba waxa ay qabtaan iyo waxa cusub ee ku soo kordhay iyo maxay Soomaalida u hayaan ay maanta halkan ku qaada dhigi doona hadii Allah u dulogolaado waxa dhinacayga midigta fadhiya Xuseen Samatar oo ah Executive Director-ka African Development Center iyo Nimco oo runtii ah xubin weyn ka ah African Development Center oo maanta runtii halkan noogu timid sida aad arkaysaan xaruntan quruxda badan ee beautiful ka lagu mata qaaday Xuseen aad baad mahadsantiin Cabdimaalik aad baad mahadsantahay Xuseen waxaan jecelnahay maadaama in badan isku kala dambeysay baan maleynaya inaad studio ku casuuno ama noogu timaado halkan waxaan jeclaanahay balan update dadka ACC African Development Center waxa ay tahay iyo waxa aad qabataan iyo heerarka aad soo marteen xogaa hor dhac ka bacdina programka cusub ee aad runtii aad soo wadaan ayaan u galay doonaa marka bal qaybta hore aan ku soo dhaw Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cabdimaalik aad baad mahadsantahay sidoo kale isaga waxa aad u mahadsan Zakariya runtii oo aan aad ugu faraxsanahay mar walba runtii oo soo booqataan barnaamijyada gobolka oo dhan oo haysaan Cabdimaalik sida la socotaan caawa waxa idin la joogaa aniga Xuseen Samatar agaasimaha idman isla markaana aasaasihii barnaamijka African Development Center waxay la fadhida Nimo Faarax oo runtii xubin weyn oo ah badeecada cusub maanta aanu ka hadli doono qayb weyn ka qaadata Cabdimaalik marka hadii aan ku soo koobo hay'addan waa hay'ad dhaqaale waxaanu qabanno waxaanu kala qaybinaa 3 waaxood waaxda hore waxa weeye wixii ganacsiga ku saabsan waa business plan in la qorto wixii technical qofku ugu baahan yahay ama accounting ama marketing inaan ka caawino sidoo kalena in wixii la xiriira lending maalgelina inaan ku sameeyno Cabdimaalik la socoto waxaanu nahay hay'adda kaliya Afrikaana ee dalka oo dhan United States ka jirta oo leh awood maalgelin ay samayso ilaa iyo 110 ganacsato oo yar oo kala duwan ay magaalada maalgelinay sidoo kale waxaanu sameeynaa la socoto guryaha oo casharo ku saabsan home ownership training oo sida dadka guryaha ku yeelan lahaayeen oo ilaa December sanadkii 2004 aanu soo wadnay haddana aanu marayno oo aanu hadda ilaa haddana aanu marayno ilaa iyo 695 qoys ama families aan wax saabsan inaan train gareynay Cabdimaalik la socoto markii hore waxay ahayd hawshan waxay ahaan jirtay kaliya magaalooyinka mataanaha ah marka waxaan ku darnay suburbanka haddana waxaan u gudubnay ilaa iyo sanadii bar 6 magaalo oo kamid ah Greater Minnesota la yiraahdo iyagoo kala ah St. Cloud Wilmer Marshall Owatonna and Rochester marka 6daas Rochester those 6 cities ayaan joognaa oo aan tagnaa second xafiis labaad waxaan ka furnay magaalada Makero August bisankan ku jiro August soo dhaafay sida la socoto waxaanu nahay 9 qof oo hay'ado shaqaysa iyo consultants marka hawshaas laantood may dhacdeen Cabdimaalik oo hawshan la qabto aan ka bilaabo dhanka Xuseen Faarax oo ah Head of Business Development Unit Stephen Ray Wilson oo asagana ah madaxa qaybta guryaha oo qaabilsan Nasibu Abdirashiid Shukri Sulafa Cabdiqaadir oo xafiiska noo jooga Makero iyo Nimo oo badeecada cusub oo maanta naan ka hadla madaxweynaha u sheegno in ugu soo kortay inay madaxda taawiyada ay hogaamin doonto marka hawshaas ay Cabdimaalik aanu haynaa ka dambeysay qaybna aad baad u ogtahay way taasinaad badwaasatahay qaybta cusub aan hadii aan ku bilowno barnaamijkan cusub ee Soomaalida aad soo bandhigaysaan in badan baad ku soo jirteen barnaamijkani horta waa magacay baad u bixinaysaan sidee Soomaalidu maxay ka faa'iideyaan Soomaalidu marka xogaa yar bal noo sharax aad iyo badeecada cusub Cabdimaalik la socoto dad waxaanu nahay madow isla markaana Afrika ka iyo Islaamna dad badan waxa jira Soomaaliyeed oo rabay inay guryo iibsadaan markasta waad wada xasuustaa live-ka aan kugu imaado na weydiin jiray in ay guryaha iibsadaan laakiin si islaamika oo acceptable oo sharciga compliant sharciyadu ay qabto rabay inay ku iibsadaan marka waxa dhacay Cabdimaalik waxa dhacay muddo dheer in dadku ay weydiinayeen annaga kaliya ma dad badan Islaam wadalka yimid horta waxaan aad ugu faraxsanahay dadweynaha Soomaaliyeed maanta rabnaa inaan u gudbino inaan ku aflaxnay badeecadii ahayd aan raadin jirnay inaan helno isla markaana aan bilaabayno si dadka si islaamiga guriga ku iibsadaan
وكو مدة لبعض وقال عبد المالك أدو فرحسنا وحكمنا أنه إن دجال نصوغ علي civil war يبربر نوجي وحدنا نقول يدكي أو رأي أو مريكا الإسلام أو سي هيئات community أو كأسمية بدأ عندي فمثلا marka dadka sameeynaayo waa dadkii waa caruurtii dadka Soomaalida marka waxaan ku moodaa moogtayna aad ugu faraxsanahay taa inay dadka Soomaalida ka timid wadaacadu dad Soomaaliyeed ay wadaan midda xigto wadaacadu waxa la yiraahdaa inuu bixinay new markets mortgage product new markets mortgage marka waxa agaasimo waa manager uu noqonaya maamule waa uu noqonaya inuu fara nabasa la socoto iyadaba ka doonta qofka ay tahay waa gabar Soomaaliyeed oo runtii aad ugu haweenahay hoggaankeeda iyadoo hal yar timid Roosevelt oo aad loo yaqaan ka baxday UFM last year kasoo graduate gareysay so and now she's going to be heading that product iyada ayaa hoggaamin doonta hadduu ilaahay raalli ka yeelo marka badeecadu waa kuu sheegi doonaa laakiin balnimo yaan hadalka ka wada boogin ku wareejiyo dabcan kusoo dhawo program waa mahadsantahay asalaamu calaykum soo sheeg magacayga waa Nimco Faarax and halkan African Development Center waxaa ka shaqeynaya hadda almost 3 sano anoo arday ah baa imaaday si aan experience uga helo ka bacdi markay qalin jibeen oo sii joogay awal waxaan shaqeyn jiray department home ownership oo ah in qofku markuu guriga gadan rabo la baro sidii oo classal la siiyo oo tababar ah badeecada markay soo baxdayna ilaa oo meel laga gaaray aniga hadda si bilaabayo oo hogaamiye oo ah taariikhda waddanka hadii la fiirsho ma lahayn wax oo badeecad noocan ah oo loogu talagalay qof madow ah haddana waddanka ku cusub oo muslim ah oo haddana low income ah marka waxyaalahaas dhan markii la fiirsho aniga waqti dheer bay nagu qaadatay inaan soo saarno laakiin waxaan rajeynaynaa in si fiican uga faa'iideysan doonaan community-geena Soomaalida oo Minnesota degan haddii ay maxaa hayo si fiican u shaqeysana gobolada kale la geyn doonaa hadduu ilaahay marka waa rajo weyn baa leenahay waxaan filayaa inay dadka dhan wada imaadaan oo ka faa'iideystaan aad baa masan xuseen marka waxaad leedahiin programkan cusub ama barnaamijkan cusub ee guri iibinta waxaa lagu iibsanayaa lacag xalaal aad iyo aad cabdimaaligow sala socoto Islamic finance waa hadda runtii waxay noqotay aalad fogaatay sabab kale ma ahayn dalka qaliishka Middle East in dhaweyd waxay heleen lacag aad u fara badan oo baasiinka ah ibiisu si kacay ka soo jabay marka lacagii ay seen waxa ay ku horumariyeen badeecado badan oo Islaamic kala duwan marka Islamic financing hadda ma aha wax sidii hore ahaan jirtay wax mainstream ba noqday aad loo isticmaalo la bartay dadku aad u yaqaanaan system runtii cadaalad iyo sinaan ku dhisan sababtoo ah wuxuu diiday kaliya in dalkii uu yeesho in wax haysata in wada fiirisa inta wax haysatay half and half nuts runtii islaam ahaan marka ka fiiriso qiidad marka xaq iska dhigtay xitaa aad fiiriso xagga cadaaladda oo dalkan aad ugu weyntahay waa waxa jira horta laakiin waxaan kaloo aad ugu faraxsan cabdimaalik oo raba dadkeena inay fahmaan guri gadashada waxa uu maraa qaybo kala duwan annaga waad ogeyd meelihii aanu ka nimid dadkii weli wax ku haystay waagaa waxay ahayd inay save gareeyaan oo kaashi waa isda guriga ku gataan halkan waxaa jira mortgage system waad ogtahay cabdimaalik oo dhaqaalaha dalkan degannahay wuxuu ku jiraa khatar xoog leh khatartan waxay ka timid mortgage systemka oo xumaaday ogtahay sooma meeshay ka timid askii meeshay ka timid sama garan marka waxaan raadinaynaa waxa ay tahay in dadka Soomaaliyeed